Assalaamu calaykum. Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa toolska aad u baahan tahay si aad web development u bilowdo iyo mid waliba sababta aad ugu baahan tahay. Ugu horeyn waxaad u baahan tahay web browser si aad website-kaaga shaashada amaba display-ga ugu soo muujiso. Waxaad isticmaali kartaa Google Chrome, Microsoft Edge iyo weliba browser lamid ah. Waxaad kaloo u baahan tahay markaasi text editor si aad ugu edit garayn karayso faylashaada HTML, CSS iyo weliba JavaScript. Waxaad isticmaali karaysaa Notepad, Sublime, balse waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho VS Code. VS Code waxaa loo qaabeeyey web development-ga. Sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay features ka badan kuwa ay leeyihiin Notepad iyo Sublime iyo Atom iyo weliba editors-ka lamid ah. Kuwaasi waa kuwa basic-ga mana laha functionality badan. Waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho VS Code. Ku dhufo linkiga hoose oo soo download garaysa VS Code. Toolka ugu dambeeya aan u baahnaa waxaa loo yaqaanaa Git oo ah version control system kaasoo kuu oggolaanaya inaad la socon karayso isbeddelka website-kaaga ama application-kaada aadna la shaqayn karayso tiimam kala duwan. Git ma aha laga maarmaan balse waxaa isticmaala 98% developerska dunida. Kambaniyada ugu waaweynna waa ay isticmaalaan. Git waxaa la shaqeeya oon isticmaali doonaa GitHub oo ah website kuu oggolaanaya inaad ku kaysato repositories-ka Git-ka. Haddaba markaasi si aad isugu xirto Git iyo GitHub, ugu horreyn booqo github.com. Waxaad abuurataa account. Intaas kadib waxaad soo download garaysataa Git oo yaala linkiga description-kiisa. Hadda waxaad awood u leedahay markaasi inaad isku xirto Git iyo GitHub. Si aad isugu xirto Git iyo GitHub, ugu horreyn waxaad furtaa Git Bash oo ah terminal u wata Git-ka. Intaas kadib waxaad ku dhex qoraysaa command line-kan soo socda adigoo gelinaya magacaaga iyo weliba Gmail-kaaga. Hambalyo. Hadda waad haysataa dhammaan toolska aad u baahnay si aad u bilowdo web development. Git iyo GitHub-na way isugu kaa xiran yihiin.